cadooyinka la yaab kale dalka Sacuudiga ka dhacay ayaynu ku guda jirnaa isaan horeba u soo sheegay nin baa wada guursaday 4 dumar oo kaaga darana 4 dumar iyo kala yihiin ardayad macallimadeedii maamulihii dugsiga iyo waliba haweeneydii kormeeraha ka ahay dugsigaasi kaasi malaa waxaba la oran lahaa wasaaradii waxbarashada inuu guursadun baa u hadhay shantii bishan aynu ku jirnay March ayaa wargeysyada waxa lagu soo daabacay gabadh macalimada oo warbaahinta la hadlaysa gabadhaasi waxa ay ka waramaysaa guur kulmiyay iyada iyo ardayadeedii maamulihii dugsiga ay wax ka dhigto iyo waliba haweeneydii kormeeraha ahayd cajiib sheekadaasi wadwadi karimayne aan soo dhaweeyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatan stuudiyaha igu weheliya Cabdixakiin sare aad baad mahadsan tahay horta ninkani dabcan waxa la yiraahdaa qofku waxaan ku naqaan markuu reer sameeynaya ama guursanayo inuu waxa la yiraahdaa tafaariiq ku qaataa marbu guursanaya hadana mid kale guursanaya hadana inta diiniyan afarta uga shay ninkan waxa la sheegay inuu yahay nin Sacuudiyaan ama u dhashay wadanka Sacuudiga afartan haweena marbu wada guursaday afarta haweeney dabcan haba guursado afarta wada qababa arrinka muujisada iyo cajiibka noqotay dunida indhaheega soo jiidatay waxay noqotay in afarta haweeney hal meel ku wada sugan yihiin hal dugsi bay ku wada sugan yihiin waxaana kala yihiin ardayadii wuxuu guursaday ardayadii haddana macallimadeedii uu guursaday haddana kormeeraheedii ama waxa supervisorka la yiraahdo guursaday haddana maamulihii dugsiga ama principalka wixii la oranayay ayuu qaatay marka waxa weeyaan afar qof oo hal dugsi wada jooga oo hal meel wada jooga subaxii meel wada imanayuu guursaday aad iyo aad marka maamulihii iyo ilaa ardayadii afartu waxay ka kooban yihiin maamulihii supervisorkii ama kormeerihii macallimadii iyo ardayadii ma hal mar buu wada aroosay mise madba mar buu guursaday saaray ninkan oo ah nin kontonjir isla markaana seen horaba u sheegnay Sacuudiyaan ama u dhashay wadanka Sacuudiga ayaa la sheegay haweenkan dugsiga uu ka wada guursaday inuu yahay dugsi ku yaala gobolka Jizaan wadankaasi Sacuudiga ka tirsan dabcan waxa la tilmaamay inuu dumarkan uu guursaday markii hore dabcan inanta uu guursaday kadibna uu kuwa kale uu ka wada dabagay haatan ay afartooduba yihiin haween guri ugu jooga amaba u dhaqan oo qoys u ah oo wada qabay guri iyo qoys iyo waliba reer wada yeegaleen afartoodaba iskuulkii ma yimaadaan oo midbada shaqadeedii gaarkii tii ardayda ahayd wax wali iskuulkii ma ka barataa maamulihii iyo macallimadii iyo kormeerihiina sidooda ma u yimaadaan waa cajiib afartooduba meesha wada yimaadaan aroortii u soo wada kalahaan way soo midno qaarna waa soo shaqo tagaan qaarna waxbarasho u soo doontaan waxaana xusud mudan gabadha macallimada ah ee kamid afartan haweeney warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inaanay wax isbedel ka dareemin inay hal mar iyo hal goob ay saddexdii haweeney kale oo ninka odaygii wada qabay inay meel wada yimaadaan ay subaxii sarkaan oo meesha isu wada yimaadaan saynu ka warqabnana dee sahray aalaaba dhaqanka aynu ku naqaano iyadoo diintu ogashahay afar haween oo nin oday wada qabo si ku heshiiyaan baaba adagba haweeneyda laakiin waxay leedahay maba dareema wax farqiyaba inaan saddexdii kale meel la joogo marka way wada yimaadaan dugsiga waana qaarna soo shaqo tagaan qaarna waxbarasho soo doontaan cajaayib dee waxaan arkay dadka commentka ama fikradahooda ka dhiibtay qisadaasoo nin baa yidhi dee aniguba maamulaan ahoo dumar badan baa iskuulka ka shaqeeyo oo dee midna kamaan guursan Cabdixakiino wuxuu ninkaasoo aan iskuulka isagoo ka tirsanayna banaanka ka yimidna afartii dumar ahaadba wuu xaabsaday waxa laga hayay siin ka warqabnay Soomaalidu way mahmahabadeen mahmaaya kaftankooga aad u badan markii waraabaa laga mahmaayo waxa la yiraahdaa waraabihii baa inta soo eegay daanyeerka way naqaanayo dabacas buu leeyahay inta soo eegay buu yiri waxa baahi haysay waxay bari walwaalaysa marka qaar badan oo nolosha aan wax badan ku haynin marka ninka odaga arka dabcan mahmaaha badan oo qaar kood aan horeba u jirin ayaa waxa suurtagal inay kaba timaado haseeshe waxa xusud mudan in ay dadku aad uga dhaxdoodeen dhinaca warbaahinta aad uga doodeen gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media qaarkood way u duceeyeen ninka odayga waxay yiraahdeen ilaahay ku astur afarta xaas qaarkood waxay leeyihiin maxaan ku yiraahdaa ninka adoygii marba haddii uu karayo awood ahaan dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba diiniyan iyo sharciyan loo ogol yahay wax dhibaya shidii kuma jirto qaarkoodna waxay leeyihiin wallahi waxaan u naxsannahay afarta haweeney meel la isugu keenay halkan nin wada qabo aroortii meel isugu wada imanaya dabcan ninka odayga ku wada abtirsanaya marka way ku kala duwan yihiin weli dadku aad ba lagu kala fikir duwan yahay waxa ka sii daran dee inantii ardayda ahayd oo maamulaheedii iyo macallimadeedii haddana ay yihiin dangalooyinkeedii oo dee marka ardaygu wax sameeyo xafiiskii la geynayay dee waxa kaga soo horeysa dangaladii kale imtixaankii iyo casharadiina dee macallimadii baa halkan joogto oo iyadana ay isla dangala yihiin marka xaaladaas waa xaalad murugsan dee waxaan u malaynayaa baaq bay ka soo saaray bahda waxbarashadu waxa suurtagala
inuu isagu ka heshiisiin doono noqon doono hadday kuba adkaysa iyadu amaba ay wuxuu kusoo dhex maraan dugsiga aad iyo aad cabdi xakiim waad mahadsan tahay adiga